halkan saakay mar kale waa guul weyn oo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan gaar ahaan degmada Kaxda u soo hoyatay in maantay meeshan aan taaganahay duqii magaalada Muqdisho oo halkan ka dhagax dhigay iyo maamulkiisii oo garbaha ka taagan in wadadii degmada Kaxda in saaka la dhagax dhigay qaybtii ka dhamaneed oo la dhameystirayo gudoomiyaha halkan saaka waxa fiicneed in Sheekh Cabdi Xayi horta waa maqan yahay saaka aan malaynaa waa shaqo tagay xamar u shaqo tagay halkan markii maamulka gobolka la soo magacaabay gudoomiyaha gobolka saaxiibkay wax yar naga horeeyay oo 2 bilood qiyaastii meelahaas markiina la magacaabay maalmo kadib aan halkan imid laba mar halkan imid marna degmada agteeda meel ah ayaan hameen dhalinyaro kula caweynay oo aan ku sheekaysanayn Sheekh Cabdi Xayi iyo tiimu kamid yahana waa wada hadal waxaan u sheegay in meeshan gobolkan Banaadir aan nimid Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiye uu ka noqday Madaale wadooyinkan magaalada Muqdisho arkaydin oo hadda lagu socdana ninkii saldhigga u ahaa oo la yimid fikirkaas xilligaas anigu waa la joogay asagu ahaa waxaan u sheegay wadadaanu inay dhismi doonto inta uu joogo ama aan joogna meesha ilaahay mahadiis ballanqaadkii maalintaas aan ballan qaaday saaxiibkay waa la wadaagay wuxuu yiri waxbaan kala hormarsiinaynaa laakiin ilaahay idankii waana dhagax dhigaynaa waana la dhisi doonaa teeramkeen gudoomiye horta waa mahadsan tahay ballanqaadkii iguma aada beenayn maanta waa taagannahay aad iyo aad aan kaaga mahad celinayaa in maanta halkan ballantii aan shacabka dhalinyarada iyo odayaashii aan meeshan ugu imid in maanta loo dhagax dhigo jidkii oo la dhameystiro aad iyo aad aan kaaga mahad celinayaa adiga oo waajibkaada gudanaya ayaan haddana wixii maaragtay aan ballan qaada halkan markaan imidaad maanta aan ka dhabaynay halkan aad ka dhagax dhigtay aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan ku soo gabangabeeyo magaaladan Muqdisho jidadka la dhisayo aad aragteen buundooyinka la dhisayo aad aragteen oo horay uga dhicin oo hadda la dhisayo argooyinka aad aragteen oo la dhisayo waxa lagu dhisayaa wax la yiraahdo $1 dalkaada ku dhiso iyo isxilqaan iyo bulshadu inay maamulkooda garab istaagaan lacagtii maanta sidaad maqlaydeen gudoomiyaha degmada idiin sheegay waa maaragtay la dhiibay bilowgeedii la dhiibay lacagtaas hadda la sheegay waa lacag aad iyo aad u badan waxa laga rabaa degmada canshuurta inay bixiyaan lacagta ay bixiyaan waxa aad arkaydeen oo maalin kasta Soomaaliya loogu deeqayo dadaal laga soo aruuriyay sidaan oo kale ah oo xaafada degan oo magaalooyin degan ayaa $1 iyo $2 looga soo qaaday markaas Afrikaanka iyo ummadaha gaajaysan lagu caawinayo marka waxa la ka rabaa garab istaag maamulka gobolka Banaadir magaalada Muqdisho amnigeeda ayuu ka shaqeynayaa gobolada kalena gacan u siinaya oo ciidamada gobolada joogana waa garab taagan yahay asaguna waa ka shaqeynaya jidadkii iyo dhismooyinkii wadooyinka kaabayaasha dhaqaalahana waa uu ka shaqeynaya waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo rajaynaynaa maalmaha soo socda inay waxaas dhammaad doonaan oo magaalada Muqdisho wada jid noqon doonto haddii shacabkeena aan garab ka helno maamulkeena suuban oo gudoomiyaha gobolka uu hogaaminayana aan muddo joogno hadduu Ilaahay yiraahdo gudoomiye mar kale aan rabaa inaan ku mahad celiyo degmada Kaxdana adinkana waxaan idin leeyahay hambalyo ballantii waa fulinay waxa la ka rabaa adinkuna inaad maamulka iyo degmada iyo si fiican aad ula shaqeeyeen canshuurtana aad bixidin sidaan waxaan iyo wax ka badanana heleydin hadduu Ilaahay yiraahdo aad iyo aad mahadsantiin